الله أكبر الله أكبر. xilliyada taajidka la tukanayo gabdho badan oo soo lugeynayo xaafado fog ka soo lugeynayo. cabdinaasir iyo saaxiibadii waxa ay gaaf wareegaan habeen walba xilliga dambe xaafadda Soomaalida waxa ay caawiyaan dadka masaajidka soo aadaya si ay tuugada uga badbaadiyaan. How are you? Where are you going to? Come I take you. waa xilli dambe qof socdana ma laha balse tobanka dambe ee Ramadaanku dadku waxa ay soo aadaan iyagoo hal iyo laba u socda masaajidka si ay u tukadaan. How are you? My brother, you're not allowed to stay here, you know that. Policeman, pack your stuff. maxaa ka rabtaa ninkan hadda meesha fadhiya? maxaa dhiba oo keenaya hadii aad wuxuu keenayaa dadka masaajidka u socdaan. dadka masaajidka u socdaan baartaan laga yaabaan. So that's why laakiin waa hal qof ma dadka meesha wadanka jooga ma la aamino qurbaan ma la aamino. Pack all your stuff ne. dadka masaajidka guriyasha ku soo qaadno masaajidka geeyno masaajidka salaada dhameystaan gurigooda ku celina. marka sanad walba Ramadaanka tobanka dambe waa sameeysan miya? sanad walba waa sameeynaa. ma shaaka ana dibno oo ku sadaqaysana ajir iyo xasanada ku shaqaysana. ka muuqda dad badan oo u soo guuri tobanka dambe in ma aragtaa ay Ramadaanka ka faa'iideystaan. Soomaalida halkan ku nool waa ay wada ganacsadaan balse tobanka dambe inta badan ganacsiga iyo shaqadaba way joojiyaan. alxamdulillah aad bay ugu dadaalaan ilaahayna dhammaan bulshada waxaan uga baryayaa inuu acmaasha wanaagsan ay wadaan ilaahay uu ka aqbalo. masjidka Imaam Shaafici ee xaafadda Mayfair oo kamida masaajidada ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika waxaan ku dhex jirnaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan gaar ahaan tobankii dambe ee khayrka badnaa ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrka badan uu ku sheegay gaar ahaan Laylatul Qadriga Nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu aad ka u dadaali jiray. waxa kale oo ka jira masjidka tobanka dambe si gaar ah suxuur baa lagu sameeyaa oo hay'adda Al-Bayaan ay ugu sameysaa oo ka mas'uula masjidka iyo dhammaan masaajidada inta badan Soomaalidu ay gacanta ku haysay dalkan Koonfur Afrika. suxuurtaas oo dhammaan dadka guta ama tukada salaada tahajjudka marka laga baxo ay ku wada suxuurtaan si jamaaci ah masjidka. waxaa jira oo kale dhalinyaro isxilqaantay oo tobankan dambe isu xilqaantay dadka bulshadooda inay u shaqeeyaan security-ga inay ilaaliyaan dadka ka imanaya xaafadaha fog inay ka warhayaan oo ilaaliyaan tobanka dambe aan seexanin habeen oo dhan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo suxuurta ay u qaybiyaan dadka muslimiinta ah way ilaaliyaan way nidaamiyaan masjidkay ka warhayaan. waxa weeye dadka qaar bay ka soo qaadaan xaafadahooda oo ay keenaan masaajidka. Abdulxakiim Ibrahim, Johannesburg, Koonfur Afrika.